guud ahaanba gobolkani sanaag ayaa waxaa ka jirta xaalad abaareed oo aad iyo aad u adag oo saameyn weyn ku yeelatay bulshada xoolo-dhaqatada iyo bulshada kale ee ku nool gobolkani sanaag waxayna iiga warameen xaaladda abaareed si ay uga jirto gobolkani sanaag waxaana booqday saaka aroortii hore ceelka magaaladani ceelbuh gobolkani sanaag anigoo u kuurgalaya xaaladda abaareed si ay dalka uga jirto waxaana aan ceelka kula kulmay bulsho xoolo-dhaqato ah oo aad u fara badan oo markaasi ceelka u soo aroortay una soo aroorisay xoolahoodii iyo halka ay booyaduhu xoolaha miyiga ku maqan ay biyaha uga qaadayeen ceelka ayaa maanta mashquul ahaa waxaana mashquulkaasi ka dhigay xaaladda abaareed ee adag ee ka jirta gobolkani sanaaga siduu markaasi yahay waana kuwan bulshada xoolo-dhaqatada iyagoo xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkani sanaag iyo saameynta ay ku yeelatay iyaga warbixinaya abaar baanu qabnaa abaartana ilaahay baanu uga cabanaynaa abaar adag baa jirta oo nagu raagtay marka dee dadkuna waa tabaalaysan yahay dunyadana indhihiinni baad ku aragtaan marka aad iyo aad baanu xagga uga cabanaynaa raashinka iyo xagga abaaraha aad iyo aad baanu uga cabanaynaa haddii waxaanu jecelahay haddii ay islaamnimo jirto in hay-aduhu noo gurmadaan ayaanu aad iyo aad u jecelahay marka wax taakula ah oo aanu gacanta ku hayno haddii aanu nahay meesha reerguraa ma hayno ay dadku waxa weeye dee dadku haddii dunyadiisu xumaato halis buu ku jira waayo dad beeraley maaha waa dad waxaa ku noolaa biyaha waa la helhelaa siciriina waa lagu helhelaa laakiin dee waa qaali oo waxaanu ku iibsano ayaaba nagu adkaada markii aad ceelka aad booyada ka dhaafsataan intee booyada idinku timaantaa gurihiinna booyada iyada foostadii waxaana laga siiyaa ay noogu tagtaa meelaha u dhow 100 meelo ay 120 noogu tagto iyo meelo ay 140 noogu tagtaana waa jiraan xaaladda miyiga ka jirta miyiga ugu warhaynaa magaalo warkeeda baxayno xaaladda ka jirta miyiga waa xaalad aad u adag way adag tahay iyada oo abaaru aad u saameeyeen xoolaheena iskaba dhammaad iskaba yihiin haddii ilaahay uu yahay way adag tahay nolosha miyiga aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay xaaladoodu hore waa yaraadeen ilaahay xaaladda ugu sugan jira waa xaalad adag arrimaha aad i weydiinaysid aad iyo aad bay arrimahaasi noogu adag yihiin abaaraha hanti yaraanta xanuunada raxmad yarida aad bay noogu fara badan yihiin annagu dadku wuxuu ahaa dad xoolo-dhaqato ah buu u badnaa xoolihii waa ka lumeen wuxuu ku soo xerooday magaalooyinka ugu horrayn magaalada ceelbuh la yidhaahdo baa ka mida magaalooyinka haddii ay ku soo xeroodeen dadkaasi hay-ado waxtara iyo dawlad waxtarta iyo baayac mushtar waxtara midna ma uu helin hantidiina waa ka tagtay dadkaasi aad iyo aad buu ugu baahan yahay baahidu u haysaa waxbaan maara doori ma jirto waxaanu ku jiraa naftaa orod bay kuga aamintaa baanu ku jiraa riigag dhaqdhaqaaqa baa jira oo biyayarooda oo aan dadka iyo xoolaha waxa ka nool ku fillayn baa jira waxaasaa la iskaga warwareegaa dadku dee marna biyaha waa la amaahdaayo dee dayn baaba lagu cabbaa biyaha ninkii waxayaana dee waa iska bixiyaan gugu soo socday marka aad iyo aad baa shilaal ku jira xooluhu way jilceen iyaga walba yaraa oo xooluhu hore isaga tegay ayaa wixii haray oo gacanta ku hadhayna aad u jilcsan yihiin marka aad iyo aad baa isla litaa insha Allah billahi karim ilaahay baa bixin kara oo ilaahay raxmad buu noo shubiyaa isku soo waduubo abaarta ka jirta degmadani ceelbuh gobolkani sanaag iyo guud ahaanba gobolkani sanaaga ayaa ah mid aad iyo aad u adag oo saameyn ku yeelatay bulshada xoolo-dhaqatada gaar ahaan waxayna ka dalbadeen hay-adaha maxalliga iyo kuwa dawliga in ay markaasi la soo gaarhaan biyo iyo baadba si ay markaasi uga soo kabtaan xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkani sanaag waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga Soomaali Cable TV degmada ceelbuh gobolka sanaag.